Salaamu calaykum. Ku soo dhowow magaalada Muqdisho, qalbiga iyo ruuxda dalka Soomaaliya. Halkan waxaan ku sharaxi doonaa dhowr qodob oo ka mid ah quruxda dalkeena, khaasatan Muqdisho. Kani waa bakaaraha qalbiga ganacsiga ee magaalada. Halkan waxaa ka socda ganacsi weyn, waxaa yimaado ganacsato ka kala timid dhulka Soomaaliya oo dhan. Muqdisho waxay leedahay taariikh aad u dheer. Masaajidyo qurxoon sida kuwa hadda la dhisay oo kale waa xarun diimeed oo ay sheefyo badan wax ka barteen kana bareen diinta Islaamka ayaa lagu xasuustaa Xamar. Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay meel caan ku ah dhalinyarada aanan aqoonin qabyaalada, qof kasta oo soo booqda magaaladana soo dhoweeya, taas oo ka dhigaysa magaalo ku habboon in lagu noolaado. Muqdisho waa magaalo ka soo kacday hurdo dheer oo ay ku jirtay muddo dheer, waxayna noqonaysaa mid ku socto xowli dhinac kasta ah, sida dhismayaasha dhaadheer, ganacsiyo cusub iyo dad rajo weyn ka qaba horumarka guud ahaan dalka Soomaaliya. Adiga maxaad ka aaminsan tahay Muqdisho?